bangiga amalna waxa uu tababar u soo gabagabeeyay maamulayaasha xarumaha lagu xanaaneeyo caruurta ee magaalada Boosaaso. warbixin amuurtaasi ku saabsan waxa stuudiyaha SBC ee Boosaaso noogu diyaariyay Yuusuf Maxamuud Yuusuf. tababar ay soo qaban qaabiyeen bangiga amal iyo dalada waxbarashada ah ee been ayaa ka dhacay magaalada Boosaaso. tababarkan waxaa lagu tababarayay maamulayaasha iyo macallimiinta xarumaha xanaanooyinka caruurta ee magaalada Boosaaso. tababarkaasi ujeedkiisu waxa uu ahaa kor u qaadista xirfadda maamulka iyo waliba maareynta. ugu horreyn waxaa goobta ka hadlay madaxa suuqgeynta shirkadda Amal Banki Muuse Siciid Xasan wuxuuna faahfaahin ka bixiyay ujeedada tababarkan iyo waxa loo qabtay. ujeedada barnaamijka waxa maanta in xirfadihiina kor loo qaado maadaama caruurtii haysaan ubadkeena haysaan atfaaluna فلدات أكبادنا تمشي على الأرض معناه هو دوركيني بقعدت كويسان بدل دوركيني قعدت كويسان إن مركا لين عاويو لين جرب استاجو سودير كاس أوبر بارو تاس مركا وابلا وما تكون كين أو شغل دونا ونقول صعب دونا وحنا يدكون النبي اللي جفوجان هبان ودي ما أنت وان كون لبعض وسوي معنا وصار كينا إن نودي نبلاتان maamulaha bangiga amal ee bari iyo sanaag maxamed faahiye ayaa maamulayaasha iyo waliba macallimiinta xarumaha xanaanooyinka caruurta u sheegay inay doonayaan inay iskaashi wada sameeyaan. wajiyadkooda oo gol fiican yahay bulshada haweenaysa waxaan rabaa marka inaan runtii arrintaas hoose ka harayno jaamacada warka dhameeyay anaga haddaan bangigan oo inoo go'an tahay insha allahu tacaala inaan bulshada kala qayb qaadano nuur salaad oo ah mas'uul ka socday dalada waxbarashada ahliga ee been ayaa goobta ka hadlay wuxuuna booriyay dhammaan intii ka soo qayb gashay tababarkan iyo waliba macallimiintii bixinaysay oo ilmuhu muganasa markuu yar yahay meesha albaabku ka soo galay ay tahay waxbarashadu ahmid gaar bay leedahay in muganasa cid ka shaqeynayso ay leedahay xirfad dheeraad ah ay ku maareyn karto ayna muganasa ku horumarin karto maxaan ku raadin bini'aadankan yar oo wili ma garanaysaa aanan garan aqoontii heerarkeeda garan waxba aan ka garanaynin in ma garanaysaa la hormariyo wax qiimo iyo gaar bay leedahay. ugu dambeyn Sheekh Axmed Maxamed Faarax oo ahaa macallinkii tababarkan bixinayay ayaa goobta ka hadlay yoolkii laga lahaa ay ku xaqiijiso ilmaha waxaan kaloo dardaarmi lahayn walaalaha maamulayaasha xanaanooyinka iyo macallimiintaba isxilqaan iyo daacadnimo badan inay sameeyaan inaysan wax badan ku dhisin maxaad ka heshay maxaad faa'iido inay ka fakaraan bulshadaada maxaa u qadinta qabri baa jira qiyaama jirta adduunkan maxaad uga tagtay qad maata qowmun. qaar ka mid ah maamulayaasha xarumaha xanaanooyinka caruurta ee magaalada Boosaaso oo dhammaantood ahaa wada gabdho ayaa ka warramay waxay ka faa'iideen tababarkani. Amal Bank wuxuuna siiyay runtii tababar aad iyo aad u qiimo badan uuna soo sharfay anagoo magaalada Boosaaso shaqada aanu ka haynaa ay tahay shaqo aad u weyn shaqada aad u ballaaran ay tahay shakhsi ahaan aniga hadii aan aan sheego oo kale waxyaabahan aad uga faa'iiday waxaad moodaysaa markii macallinkii ugu horeeyay oo idaarada ka hadlaayay Sheekh Axmed oo kale uu hadlaayay waxa aniga kaliya inuu gooni ila hadlaayo gabdhaha markaan weydiiyana waxay dhaheen anigana gooni inuu sheekh aniga ila hadlayaad moodaysay waxaad moodaysay meelaha ay ka dayacan yihiin maamulka oo kale inuu aad u taataabanayay. si kastaba ahaatee tababarkan ayaa muddo laba bari ka soconayay gudaha magaalada Boosaaso gaar ahaan hoolka shirarka iyo xafladaha ee Amal Banki waxaana ugu dambeyntii shahaadooyin la guddoonsiiyay macallimiinta iyo waliba qaar ka mid ah maamulayaashii macallimiinta xarumaha xanaanooyinka Boosaaso. waa Yuusuf Maxamuud SBC Boosaaso.